labadaasuu nebigu yidhi ma joogi kara markaan arkee ilaahow ninkii jeclaadana jeclow ninkii nacana ilaahow nac salaadda isagoo tukanaya hadduu yimaado xuseyn uu nebiga dhabarka ka fuulo nebigu sujuudda unbuu dheeraysanaya la yidhi waa sunnaha markuu nebigu tukanayo xuseenna dhabarka nebigu unbuu iska dul fadhinuu ku ciyaarayay dhinac nebigu xuseenna uu ciyaarsiinayaa xagga qalbigana nebigu ayuu kaga xidhan yahay ilaahay buu kaga xidhan yahay dhunkaday xaabis bin alaqrac nin reer miya ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuul allah ubadka ciyaalka maad dhunkataa haa waan dhunkanaa buu yidhi waa ubadkeeni walaa anu 10 wiil baan dhalo wali midna kama dhunkan buu yidhi markaa buu yidhi dee maxaan kuu samayn haddii qalbiga ilaahay raxmaddaada uu ka saaray maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaaga uu naxariistii uu ka saaray maxaan kuu sameeyaa buu nebigu yidhi man laa yarxam laa yurxam ninka aanan naxariisan buu nebigu yidhi ilaahay isagan uma naxariisto cumar binu khadaab siiradiisa waxaa ku taalla isagana nin saxaabada ka mid ah cumar u yimid oo yidhi anigana ma aragtaane dowladda islaamka waa ta ballaadhatee madax iga dhig oo magaalo waali iiga dhig oo magaalo ii dhiib markaasuu cumar ku yidhi radia allaahu canhu waa runtaa waa hagaag waad u qalantaa in magaalo lagu dhiibo laakiin noodkaad ku shaqo tegaysa barraa kuu diyaarinay subaxda igu soo gal laha buu ka yidhi wuxuu yimid cumar binu khadaab oo ciyaalkii uu dhalay iyo kuwii awowga u ahaa la ciyaarayo oo dhunkanayaan oo isna uu dhunkanayo markaasuu yaa amiira almu'miniin oo ciyaalka yaryar ma la dhunkadaa markaasuu haa se ubadkayga ma wallaahi anugu wali ciyaalkayga midna ma dhunkan buu yidhi markaasuu cumar ku yidhi warqaddaan kuu dhiibay bal ii soo celi uu ka qaaday uu ka jexjeexay aqalkaaga fadhiisa buu ka yidhi oo reerkaaga u naxariiso horta reerkaagii baad u naxariisan weydaye ilmahaagiiye sideed ummad ugu naxariisan buu ka yidhi ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin cadaalad samaynaya ninka mas-uul ummad in u noqdo doonaya waa inuu ahaadaa nin naxariis badan ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin ummadda ka fikiraya mustaqbalka ummadda ka fikiraya